salaamullaahi calaykum daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka xogaha ciyaaraha caalamka ee janaalka bartamaha May. Anigu waxaan ahay Ibrahim Jimuni. Qodobada xogaha ciyaaraha caalamka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah kulamada caawa laga ciyaari doono wareegga 16 koobka qaramada Afrika 2019 iyo waliba saacadaha ay soo gali doonaan madaxweynaha Barcelona Jose Mario Bartomeu oo saxiixa Neymar Jr. Kenya jabiyay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Blaugrana. dhibaato xoogan ayaan ku qabnay Cristiano Ronaldo mid ka mid ah xidigaha halbulaha oo ah Real Madrid oo laga soo xiganayo muxuu ka yiri Frank de Jong kadib imaatinkiisa kooxda kubadda cagta Barcelona iska diiday qorshe ay Inter Milan ku damacsanayd inay kala bedeystaan xidiga lagu magacaabo Nainggolan iyo Vidal. Real Madrid oo dhigeeda Manchester United u bandhigtay lacag iyo midkood xidigaha Gareth Bale iyo waliba Isco si ay u hesho laacib Pogba. qodobada iyo kuwa kale aad u xiiso badan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena xogaha ciyaaraha caalamka ee janaalka bartamaha May. isku soo noqod wacan oo wanaagsan. dhibaatooyin xoogan ayaan ku qabnay Cristiano Ronaldo. xidiga qadka dhexe ee reer Germany iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid Toni Kroos ayaa sheegay in saaxiibkiisii hore ee Cristiano Ronaldo uu dhibaato ku qabay marar badan inta ay ku wada sugnaayeen magaalada Madrid. Toni Kroos oo hal xaafad ay wada deganayeen Cristiano Ronaldo magaalada Madrid ayaa sheegay inuu dhibaato ku qabay xaafadaha uu qabsan jiray xidiga reer Portugal. wargeyska Marca ee dalka Spain ayaa daabacay hadallada xidiga khadka dhexe ee naadiga Real Madrid iyo xulka qaranka Germany. Toni Kroos waxa uu yiri waxaan inta badan maqli jiray dabaaldegyada Ronaldo ee gurigiisa waxa ayna socon jireen ilaa iyo waqti dambe ee habeenkii. qaylada Cristiano Ronaldo waxa ay ahayd mid aad markaa u sareysa mararka qaar waxaan ka codsan jiray in codkiisu uu hoos u dhigo ayuu hadalkiisa ku sii daray Toni Kroos. arrintan ayaa imaanaysa walow xidiga xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo uu haatan ka mid yahay xidigaha kooxda kubadda cagta Bianconeri ee Juventus. Barcelona ayaa iska diiday qorshe ay Inter Milan ku damacsanayd inay kala bedeystaan Nainggolan iyo sidoo kale Vidal. kooxda Inter Milan ayaa keentay qorshe fashil noqday oo ay dhigeeda Barcelona ugu soo bandhigtay inay labada ciyaartooy kala bedeyshaan sida ay baahiyeen warbaahinada ka soo baxa gudaha dalka Talyaaniga. waxaa soo ifbaxay warar xan ah oo sheegaya in Arturo Vidal uu dib ugu midoobi doono tababarihiisii hore Antonio Conte oo xilka kooxda kubadda cagta Inter Milan loo dhiibay dhawaantani. Gianluigi Di Marzio oo ka tirsan shabakada Sky Sport Italy ayaa shaaca ka qaaday in ay sheekadani bil ka hor uu ka war helay isla markaana Internazionale ay keentay qorshaha ay isaga fogeynayso rajada ay ka qabaan xidigooda lagu magacaabo Nainggolan ka oo la fahansan yahay in uusan ku jirin qorshaha Antonio Conte. kooxda ka dhisan Stadio San Siro waxay isku dayday inay kooxo badan u bandhigto xidiga reer Belgium waxaana ka mid ah kooxda Blaugrana oo ay ka dalbadeen Arturo Vidal oo 32 jir ah. si kastaba Barcelona waxa ay go'aansatay inaysan aqbalin dalabka kaga imaanaya dhigooda Internazionale ee ku aadan inay gacanta u geliyaan xidigooda Nainggolan si ay kaga helaan Arturo Vidal. balse Barcelona ayaa ku adkaysanaysa inaysan iibin xidigooda khadka dhexe ee xulka qaranka Chile Arturo Vidal. dhanka kale kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa shalayta waxa ay si rasmi ah u soo bandhigeen xidigooda khadka dhexe ee Frank de Jong ka oo kaga soo wariyay kooxda kubadda cagta Ajax Amsterdam ee dalka Holland. xidiga khadka dhexe ee reer Holland Frank de Jong ayaa ka soo muuqday shirkii jaraa'id ee ugu horeeyay ka loogu soo bandhigay saxaafadda inuu yahay ciyaartoy cusub ee kooxda kubadda cagta Barcelona. wargeyska Mundo Deportivo ee dalka Spain laga leeyahay ayaa daabacay hadallada Frank de Jong kadib shirkii jaraa'id uu kaga soo muuqday garoonka Nou Camp. waxaana hadalladii laga diiwaan geliyay Frank de Jong ka mid ahaa waxaan mar walba ku riyoon jiray inaan u ciyaaro Barcelona. waa wax wanaagsan inaan halkan joogo inaan u ciyaaro Barca waariyadeyda tan iyo carruurnimadeyda. markii aan fursad u helay in aan halkan imaado wax sahlan ayay ii ahayd in aan ka fikiro. intaas kadib Frank de Jong ayaa waxa uu ka hadlay mustaqbalka saaxiibkiisii hore ee kooxda Ajax Martin de Ligt. waxa uu yiri waan filayay inaad ii weydiinaysaan
su-aasha ku saabsan isaga waxaan jeclaan lahaa inaan halkan ku arko, laakiin go'aanka kama dambaysta waxaa iskale isaga iyo waalidkiisa. intaasi kadib De Jong ayaa wax laga weydiiyey guushii Ajax ay ka gaareen kooxda Real Madrid tartanka Champions League xilli ciyaareedkii hore. waxa uu kaga jawaab celiyey, aad ayaan ugu farxay in Real Madrid aan ka reebno tartanka Champions League. arrin ku saabsan lambarka uu u xiran doono kooxda Barcelona kadib markii lagu soo bandhigay maaliyadda bilaa lambar la'aan ayaa waxa uu yiri, nambarka 21aad waa mid gaar ah aniga ahaan, waa nambar aan markaasi aad ugu faraxsanahay, laakiin waan arki doonaa nambarka ay ii go'aamiyaan kooxda Barcelona ayuu yiri Frank De Jong. waxaan dalabyo badan ka helay kooxo kale balse inaan u saxiixo heshiis cusub kooxda Barcelona waxaan kaga mahadcelinayaa Josep Maria Bartomeu. waxa uu ii muujiyey sida weyn oo ugu kalsoon yahay awoodayda ciyaareed iyo weliba in uu aaminsan yahay guushayda. waxaan uga mahadnaqayaa joogitaankayga halka kan. si kasta ha ahaatee, xidiga qadka dhexe ee reer Holland Frank De Jong ayaa heshiis 5 sano ah u saxiixay kooxda kubadda cagta Barcelona ka uu muddo dheer ku sii joogi doono garoonka Nou Camp ee gobolka Catalonia. dhanka kale waxaa weli soconaya koobka qaramada qaaradda Afrika ee AFCON 2019 waxaana caawa iyo weliba galabtaba la ciyaari doonaa kulamada wareegga 16 koobka qaramada qaaradda Afrika. tartanka koobka qaramada qaaradda Afrika 2019 ayaa si rasmi leh uga soconaya magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar oo sanadkani iyagoo ay martigelinayaan tartankan. waxaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay heerka guruubyada ee koobka qaramada qaaradda Afrika 2019 iyadoo xalayta 2 kulan ka tirsan wareegga 16 la ciyaaray. xulka Senegal ayaa u soo baxay wareegga 8-aadka koobka qaramada qaaradda Afrika ee AFCON kadib markii hal gool iyo eber kaga adkaadeen dhigooda Uganda, waxaana goolshaasi uu ansixiyay xidigooda Sadio Mane. sidoo kale caawa ayaa la ciyaari doonaa 2 kulan oo ka tirsan wareegga 16 koobka qaramada qaaradda Afrika 2019 iyadoo ay isku arki doonaan xulalka kala ah Nigeria iyo sidoo kale Cameroon. kulanka xiga ayaa dhexmari doona xulalka Egypt iyo sidoo kale South Africa. haddaba xilliyada ay soo gali doonaan ayaan ishu marinaynaa. 7 habeenimo ay soo gali doontaa ciyaarta xiisaha badan ee dhex maraysa Nigeria iyo sidoo kale Cameroon. 4 saac habeenimo ama 10 habeenimo waxaa wada dheeli doona xulalka Egypt iyo sidoo kale South Africa. wararka ku xiisaha badan ayaa madaxweynaha Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa saxiixa Neymar Jr kaniya jibiyay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Blaugrana. madaxweynaha kooxda Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa hoos u dhigay wararka soo jeedinaya in Neymar Jr uu dib ugu soo laabanayo Nou Camp maadaama uu fahansan yahay in Paris Saint-Germain aysan sinaba u doonin inay maska iibiyaan Neymar Jr. mustaqbalka Neymar ayaa aad looga hadalhayay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda isbuucyadii la soo dhaafay, waxaana lagu waramayay in uu si cad u qeyrtay rabitaankiisa ku aadan inuu dib ugu laabto garoonka Nou Camp ee kooxda kubadda cagta Barcelona. 27 jirkan ayaa 105 gool u dhaliyay isagoo u saftaya 186 kulan kooxda Barcelona intii u dhaxaysay sanada 2013 ilaa 2017 kahor inta uu soo noqon saxiixa ugu qaalisan dunida kubadda cagta kuna aadan kooxda kubadda cagta PSG adduun lacageed gaaraya 222 milyan oo euro. waan ogahay in uu doonayo ka tagista kooxda PSG, balse sidoo kale waan ogahay in aysan kooxdu doonaynin inay iska iibiso, sidaas daraadeed ma jiro wax jawaab ah oo arrinkaasi ku saabsan ayuu yiri madaxweynaha kooxda Barcelona Josep Maria Bartomeu. Neymar oo seegay koobka qaramada qaaradda Koonfurta Amerika ayaa kooxdiisa fasalkii la soo dhaafay u dhaliyay 23 gool 28 kulan ee uu saftay, waana xaaladda aad u adag markii loo fiiriyo in Neymar uu si fiican u xiiseynaya kooxda Barcelona, balse madaxweynaha kooxda Barca ayaa shaki geliyay war ay soo baxayaan in warar ka imaanaya gobolka Catalonia oo iyagu baahinaya in markaasi madaxda sarsare ee kooxda Barcelona khilaaf markaasi uu dhex maray maadaama ay Barcelona sidoo kale raadraac ugu jirto sidii gacanta ugu soo dhigi lahayd xidiga Antoine Griezmann oo kooxda kubadda cagta Atletico Madrid iyadoo markaasi iska iibin doonto, balse madaxda sare ayaa isku khilaafsan in laba xidig markaasi oo waaweyn hal mar qarash lagu wada bixiyo, waxaana markaasi la isku khilaafsan yahay lacagta ay kooxda Barcelona markaasi ay bixinayso ama ay dhiibayso oo ay suuqa kala iibsiga
la galayso waan arki doonaa wararkii ku soo kor dhanka kale kooxda kubadda cagtaasi Real Madrid Maringueska ayaa dhigeeda Manchester United u bandhigtay lacag iyo midkood xidigaha Isco iyo Gareth Bale si ay u helaan xidiga jooga dheer ee xulka qarankaasi France Paul Pogba. Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay dalab aan caadi ahayn hordhigtay maamulka Red Devils kadib markii ay u sheegtay inay diyaar la yihiin 72 milyan oo pound iyo midkood Isco iyo Bale si ay markaa ugu helaan Paul Pogba. xidiga reer France ayaa doonaya inuu isaga guro garoonka Old Trafford iyadoo wakiilkiisa Mino Raiola uu shalay xaqiijiyay in macmiilkiisa uu doonayo inuu tartan cusub furo. Red Devils waxa ay qiimeyn doontaa xaalad walba iyadoo ogsoon inay markaasi ka haysato Paul Pogba 3 sano oo heshiis ah kuna adkaysan karta in aysan iibin xidigan xagaagan. Si kasta Madrid ayaa tallaabo u qaadaysa sidii ay u heli lahaayeen xidiga reer France ee Paul Pogba waxa ayna ka samri doonaan mid kamid ah xidigaheeda muhiimka ah iyo 72 milyan oo pound. Bale wuxuu noqday mid aanan markaa looga baahnayn garoonka Santiago Bernabeu ee caasimada Madrid. Sidoo kalena Red Devils goor hore ayay diiday qorshaha uu ku imaanaya garoonka Old Trafford taasna waxa ay albaabada u furtay in Ole Gunnar Solskjaer uu dooran karo Isco oo qadka dhexe kooxda awood ku soo kordhin kara. waatahay inta ayaan ku soo gabagabaynaa barnaamijkani xiisaha badnaa xogaha ciyaaraha caalamka oo aad kala socoteen channelkeena bartamaha May. haddii aad channelka ku cusub tahay fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto like nagu dhiirigeliso sidoo kale u share garaa asxaabtaada. anigu waxaan ahay Ibrahim Jamuni tan iyo barnaamijkan kiisa xiga nabadgelyo.